reaction to the ruling, the former president has said that God has made this decision. It's a sad day for the court and for the country. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترامب ayaa wuxuu yidhi go'aankan maxkamadda ay soo saartay ilaahay ayaa waafajiyey waa hadalkiisa ma aan hadalkayga ilaaha go'aankan waafajiyey inay noo soo saaraan oo ah maxkamadda cilisay ama diiday go'aankii hore ama arintii ama sharcigii hore u jiro ah inay gabar walba ama dumarka ay xaq u leeyihiin inay iska soo dilaan ilmahooda maxkamadda maxay tiri wax ka jiri ma laha cid soo ridi karta ma lahan تقريبا 24 قبل أما معمول أما محاكمة state أو أمريكان أي أرنتاسي أي سامينيسا مركت وحنديه كرنا تقريبا أمريكان كوحة شرعي كان نخذي إن يبدأ إن المهدي لي كرين هدي كدي أرنتاسي وحندونا يا دد بدن ولاشن إلى هنا يكملتها إن هالمر إن يرد بداميو أم فهنسيو محلو لجيدا أرنتن دينيا إيو سيدو كري محي وح كل سنة maxaa xisbiga Republican-ka say u badan yihiin waxay diidan yihiin ama ay macnaha ku raacsan yihiin maxkamadda waxayna diidan yihiin in arintan laga dhigo mid sharci ah yaani cidii doonta in ilmaha iska soo xaqo sharcigan marka sabab ay sharci ahaan uga dhigayaan gaalada maxaa keenay maxaa ku kalifay inay diidaan ilmaha in la soo rido ama la soo xaqo saa u taqaanaba kow waa naf goysmo waa naf oo la dilaayo cunigiyo caloosha ku jira hayraado oo markaasi ha ahaado mid nafta lagu fuufay ama naf yeeshay ama markaayunan ahaan yaani waxa la sameeyaa waa la jarjarayaa cunigi ama sun ibalaay lagu dilayaa taasoo saameyn ku yeelanaysa gabadha ee mustaqbalkeeda iyo dhalitaankeeda dambe iyo wixii la midka ah cunigiina waa naf oo ahaayo waa la gooyay taasi ka fiiriyeen okay islaamka sabab u diiday boqolkiiba boqol waa sida naf in la dilo islaam ma banayn نف إن لدي الإسلام ما أقرأ يعني شمبر كاس أي أكبر وليجاية طبعا إن وحلا سيو ممنوع ويان وحمسين كرتت وحاكو خرميل بق يعني بور لهايا حسين وح مركا ميلها نو قرأ ماضو ولا لسه مالي ذا وحلا شيخو بالك ما حوجا روتي أسوق قادي دي وحلا ميد أو الشرع الدراء لما أقرأ مركا تاس أنت سن يعني هبرجينا إن شاء الله تعالى مدة مركا هذا نسيس عضو إن إسلام كمركا نف إن لجويه وديري نعم مسلمين هدانا هاي وان سمينا وان خرحنا وان دلنا بلايان سمينا قبيلة إسدغالو قبيلة إسودلنا وان كالان درسنها إسودلنا بلاي وحي لمدك انت بو حاران وحا لمد تن عنيقا لوغو تغايو ميشو اللوكو أبوري كدبنا لوغو سو دلايو وان لمد سيدا درت هذا قال هذا قارنا وحي أديدايان دينيا أو دين تكريستانك ما أقرأ أهان سيداسي ليه سيداسي أديدايان قارنا وحي ليهين نف للدلويان وسيد الإسلام كو خبوك يعني نف للدلويان أما هدان كوتو ساليت أو آت وحلوغو فهمي كرو ما أكتهي قالب بدن عالم كان إني النخذين وحل الله فيجن ما عنان هيلب لا أري يعني هيلب ورن معنان قاركو ذا كلون كعنان لكن لمان كلونا معنان دقاق معنان أري إسكبدا حولها أي نوع هيلب ورن معنان محيليهن وسيدو إن لو دايا ماشاسي لقارتي kuwa marka waxay qabaan waa maxay had waa vegan-ka qolada ah way badan yihiin waa qolo aad u tiro badan awood leh supermarketyada qayb dhan ay leeyihiin oo vegan ah macnaha xawayaan subagiisa ama hilibkiisa ama wax uun kamid ah xiirtiisa iyo kuma jirto ayaa ku qoran markaas vegan oo caadi ah waa weyn ayaa ku qoran han noqoto cabitaano han noqoto maxaan ku dhahay naanacyo jalaato nacamha han noqoto cuntooyin buskudo maxay kulli سكشنادن قيبدن أي ليه فيجن لبر خضار تاسي عنان يعني معان كاسي عنان فروتس كاسي عنان وهي عقار أي عنايان إلا مركا ريستورانتيدي حتى أي ليهين قيبة فيجن مثلا سوبر كذا تجيسا بيجر هيلب عمل أصميسن أو خضار أن لجسمي أي در كيسا مركا خلاص أبود له سيدا أتي ربضن حالهم كانوا كوسي فافايا أو ديدن إن حولها اللقراء أما لجورع أما بضح الغرف وحي لمتكا أي waxay sidoo kale taageersan waa maxay kana soo horjeedaan carruurta in la dilo marka basiid waa inta fahanto weeyaan naf in la gooyo islaamka mar walba wuxuu ka taagay meel aad u sareysa uu diidan yahay ma ogola adigana waa inaad ogaataa marka dadka waxa la midka taageeraya waa inaad ka mid noqon qofka doonto meesha doonto joog gaar ahaan walaasheena ilhaan arintan u ololeynaysa
hortiina arrin kala yaab badan oo ka naxdin badan oo yacni laga qisoodo gaalada xataa intooda badan inkastoo hadda ururkaasi aan dhihi karo maxaan kula ururka xarfaha dabcan yacni l hebel g b waxa doonta sheegay tirada badan ururkaasi urur hadda wuxuu noqdo awood badan afkaartoodii gadaan bal afkaartooda ma gadaan cafwan afkaartooda ma gadaan afkaartooday qasbaan waa sida adaa lagu khasbaya anaa lagu khasbaya hebel iyo heblaaya lagu khasbaya yacni sankaa la iska gelinaya haddaan lagaa gelinaynin مثلا si kalay dadka uga geliyaan oo ah hatta bangiyada oo kale tusaale ahaan loogooyinkooda xilliyada ama bisha ay markaa arrintaa ay socoto ama lagu jiro iyo loogadooda magacii bangiga dowladda wasaaradaheeda kala duwan kansalada NGO-yada iyo kulli caloonkooda ay saartaan ay looga ka dhigtaan marka ka waran ilaahay tabaaraka wa tacaala ciqaabta uu ka dhalinayo ee diinteena meesha ay ka istaagtay taageerada haddii aan taageerno arrimaha noocaas oo kale ah walaal waxaan ku leenahay ka joogso adigay dantaada tahay adduunkan wallaahi waa 2 maalmood oo 3 maalmood oo 4 maalmood oo 5 maalmood oo sanad oo 2 sano oo 10 sano oo 50 sano oo 60 sano badi rasuulka calayhi salaam wuxuu leeyahay waa meelahaas 60 70 ummadayda intaasoo cimrigeeda u dhexeeya buu leeyahay rasuulka calayhi salaam in yara dhaafaysa marka isku day bal 80 dheh ama 90 dheh ama 100 ba gaarba soo ma dhimanaysid marka aad dhimato maxaa ku hor yaalla إلهي سبحانه وتعالى سؤاله سكور يالا وحكور يالا الله تبارك وتعالى وحو حرمي ديدي آيات كهر تمت وحقوم من لغو هلاقي آيات تاغيرتي وحن أولا جيدا تا إيا تاغيري دي ولا شيني تاغيرتي حدانا تنسيدو كري وحن قلت الله ما يا سيدان سمينا يا أنا مركا أرنت منطقة مع أخليقالك بس ماشي أنا كسو جيدانا وحي تهي سبب ولا كوكا اللي فيسا مجرتو دادا وحي ليهين way soo doorteen ama dadka soo doortay kamid yihiin waa inay u wada shaqeysaa oo haday sidaa tahay cadaanka kale ka hor imaadsan oo diidan arrintan soo lama soo dooran oo isla xisbiga ku jira xisbigeeda walaasheena ilhaan xisbigeeda intaasoo qof ayaa ku jira barnaamijkii koowaad ee qoladan ama barnaamijkan labaad ee qoladan intaba ka soo horjeeda diidan uma hambaliyayaan iska daayay u hambaliyayaan kama bahadlaanba بس قفك وكأمسي كرا at least يعني مرك إمديه كرا قفنا أما عذر دار إير أقف سمين كرا ملهن أو يديه كرا وكو خصبنته أو كون قال هذا عدانك أم حين وكو خصبنين ماشان وحن كاتو صايا هل أرين أو أنت بدن أفيرسو دتك والله ليه أريمهن وأيو قاصة دتك جوين كله أما دتك ميلها سريع جوجا وأيو أفيرس بدنا ومذو وعرب وهندي وأجنبي dadkii cadaanka iska lahaa wadanka waxa laga yaabaa in yaro kamid cadaanka inay hooshan wataan ma arkaysi ay media kama arkaysi laakiin media waxaad ka arkaysi ay soo adeegsadaan ama ay soo riixaan ulama jeedo walaashan in la soo adeegsaday laakiin waxay isku dayaan inay barashar ku saaraan qofka madowga ah ama qofkan ajnabiga ah inuu isbari yeelo inuu dabcan arinta taageero inuu arinta uu taageersan yahay oo kada muuji yani inuu suuradiisa iibiyo oo kale suuradaada kuwa kama iibin kartid kaamana raali noqona ibn aadan الله سبحانه وتعالى كأورا أباهن ونباهن تهينا تالي جلسوا مدة كلام جتوا محي قفكي أسرع يعني وحوشيدان إن نفسديس إكرا دعنيسا وروج كراتو لعك إن تكهش على غيابا حديك الوجه إن تكهش على غيابا إني كنت أجرا على غيابا ما دام أود بدن أيهين ويسميان وين أدعى ذا مركب وجرات شذا شلي أذيو مسلمات أبود ما أنت الله ذا اللحين كرشة ما أنت لقوا يقان أن لقوا قرنين أي لقوا دورتي إرادة الله تبارك وتعالى إرادة الله ربيتانك الله إيه كل عضي ما أنت مركا أبيقو مقعا أنت الإكسامي ترامب قاسي هذا ما أنت سيدات هاجن شري أبي أسجع دال إذن كتحي ومربا وحندي كراب الصواب وأها أمو حكمت ترامب ذلك طبعا عن كهدي أو كمتها إلا هبي الإمارين بوحو مركا شيء عمر أسان هذي سووا إلهي كهدي إن كان حتى هي مقعا إن مقعا يلاتو إنه كهب خاطو مركا maanta ugama baahnid cidna khaasatan cid adiga ka hoosayso way ka hoosayaane kaana magac hoosayso wariba dheh magac ugama baahnid sumcad ugama baahnid ilaaha ku siiyay magac ilaaha sumcad ku siiyay diintaaday ku jirtaa wayna og yihiin in islaam tahay islaamku wuxuu ka qaban way og yihiin ee waxba walaal naf iyo shaydaan ay meelaha kula galin wallaah aakhirada u yaab aakhirada in badan ilaasho adduunka waa wallaahi waa maalmo kooban haddaan dhahnay sidii hadeertan 100 sano xataa qofka haduu gaaro wuxuu u tagayaa qabrigii allihii abuuro u tagayaa waa tii wax walba la weydiiyaa maalintaasi yaad u baahan tahay ma xisbigaad u baahan tahay ma waxaad u baahan tahay magaceed u baahan tahay
ما لعقتي أطبع هانتها لا waxaad u baahan tahay waa alle subxaanahu wa tacaala keligiisa waxa ku badbaadinaya waa camalkaada nacam hadduu qofka dhinto rasuulku wuxuu leeyahay inqataca camaluhu ilaa min halaath marka camalka qofka uu ku badbaadayo halkan inuu ka shaqaysto weeyaan adduunka inuu ka shaqaysto weeyaan martabadii iyo mansibkii iyo darajadii waad gaartay maanta uma baahnid marka inaad raali geliso haddaynan arrin kaloo dabcan anaga aanan ogeyn oo qarsoon cadaadis ama dhibaato hadday jirtana caddaankaba ma inaan ogolaaneen ما إنن أقرادين طبعاً أو يديدي لهايين وارساس حتى أنك وحيالها عجيب وحيتها نعم نرحمرها واحد لها مكلال منين كذا الجوكت سياسة في الله معلي باحي لهذا أساسه كذا مكلال منين كذا الجوكت معلي باحي لهذا يعني سيدا سوء الرحمن وحيالها قاركيس كير أي إسكالين وإسكال ديدان لكن خوفك أبجنبي وحو غاير وحو ماشا سوكلا سمينا يا حضور دار وكلا أما إنه وحي إسكا سمي وكلا وحي لميتك لكن أقو وحي حدينا بأهن شرعي أجبين يسو عدكو قصبيسا مره marka intaasaan doonaa inaan idin wadaago ilaahayna subxaanahu wa ta'aala ku sugo walaal sidaas oo kale madaxweynaha Mareykanka dabcan Joe Biden ay xisbiga dabcan isku mid ka tihiinna waa uu kugu ra'yi wuxuu leeyahay maanta waa maalin madow iyo wixii la midka ah waa kaas qad arkaysaan It's a sad day for the court and for the country. amma Trump wuxuu soo istaaga waa maxay God made this decision sidaas uu leeyahay ilaaha go'aankan noo sameeyay ilaaha maxkamadda qasbay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar حق الراع ميل الباد جوكتو حق كسوغنو ميل الباد جوكتو إلهي ويديسو إنو كوغسوغو إلهي ويديسو إنو حقك كتسو قف والبان لها الله يا لما أنتن إلهي هنا تسو حقا إلهي هنا هنوش لما أنتن إلهي سبحانه وتعالى شرط إيه شيدان كان نغا إلاليو إلهي سبحانه وتعالى قف أما كوي هودو الراع نغا مردقو عفوا وحان كإلاوي أرين آد مهم رون أهانتينا أباهن إن لبرارجيو وحي تهي أريمهن نوعنا دادك تاغيرسن عرورتو لسكسو ريدو أما لديلو waa dad si toos ah u taageeray ama u taageeraya zinada sidaa darteed doonaya walaalihii Soomaaliyeed inay ogaadaan ilma iska soo xaaqid ama ilma iska soo ridid macnaheedu waa maxay waa dil naf la dilaayo taa maxaa keenay zinadii keentay badanaa zina marka ay dhacdo ama arrimo nooca oo kala markay dhacaan ayaa waxa imaada ilmihii in la soo dilo ama la soo rido ilma xalaal ah uur nabad ku galay xanuun iyo dhibaato inay keento in macnaha qofkan uu markaa ku fakara ma ahane si kala macquul ma aha sidaa darteeda muslimiin aan nahay alle subxaanahu wa ta'aala wuu naga xarimay arrimahaas oo kale macquul ma ahan gaaladii gaalada ahayd inay taagan yihiin ma naf in la dilo waa arrin weyn oo xun annagii muslimiinta ahayd inaan dhahno ama taageerno ficilada noocaas oo kale intaas ka ilaaway ogow musliminaad tahay diintaada ilaasho ogow zina ha taageerin ogow ilma in la dilo ha taageerin cidii taageertay haddaad gaari karto una seexeen karto alxamdulillah haddaadan gaari karin una seexeen karin u duceey haddii aad dabcan qowl ama qoraal aad la gaari kartana samey waa intaa بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر